bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan saaxiibayaal kusoo dhawaada barnaamijkeenii ila qosol waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed xasan cabdulle maanta sheekadeena qosolka badan waxa ay ku saabsan tahay ninbaa hadda ka hor naagtiisa ka maqnaa weliba muddo aad u dheer ayay ismoogaayeen isaga iyo naagtiisa ninkii waxa uu guursaday gabar in xooga ah markii ay isla noolaayeen ayuu xaaskiisa ku soo laabtay markaas ayuu isiri bal xaaskaaga u sheeg inaad la guursatay isagoo ka baqaya inay xaaskiisa ka caroon doonto ayuu isaga sheegay arrintii islaantii inta ay kor u booday ayay qosol iyo mashxarad dhag ka siisay markaas ayay ku tiri hambalyo xaaji 5 kalena guurso ninkii farxad ayuu meel uu isdhigo garan waaye markaas ayuu islaantii dhunkasho dhab ku siiyay markaas ayay islaantii weydiisay sababta uu u guursaday waxa uu ugu jawaabay xaajiyooy waad ogtahay nin xaaskiisa ka fog inaanu naag la'aan ahaan karin sidaas baan u guursaday islaantii ayaa iyaduna ku tiri xaajiyow bal anigana arrin ayaan kuu sheegi rabaaye armaad iga carotaa markaas ayuu ugu jawaabay ii sheeg waxayna u sheegtay in nin uu la joogay guriga intii uu isaga ka maqnaa ninkii inta uu xanaaqay ayuu islaantii feer iyo jirdil ku bilaabay islaantii markaas ayay tiri war maxaad igu dilaysaa ninka ila joogay waa cunugii markaad iga tegaysay aan 3 bilood uurka ku lahaa oo maanta 25 jir ah balse adigu ma isweydiisay intii aad iga maqneed inaan dareemi karo wixii adiguba aad dareentay kuwana dhaliyay inaad ila guursato daawade maanta sheekadeena halkaas ayay inoo joogaysaa dulucda sheekada ayaa ah hubso inta aadan how odhan waad ku mahadsan tahay la socodka sheekada fadlan waxaan si xushmad leh kaaga codsanayaa in aad ku soo biirtid channelka oo subscribe aad saartid gambaleelkana aad furatid si ay kuugu soo dhacaan mar walba wixii aan soo gelino waad ku mahadsan tahay waqtigaaga intaynu ku kulmi doono sheekada xigta waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo